الدنيا waxaad arkaysaa hal magaalo oo 100 idaacadood ay ku taal inkastoo shaqooyinkoodu uu kala duwan yahay sida Soomaalida aysan inta badan isku shaqo ahayn oo mid walba ay takhasus gaar ah leedahay haddana magaalada Muqdisho markii loo soo laabto 20 idaacadood kama badnaan aaminsanahay inta ku taal marka inay nugu yar yihiin ayaan aaminsanahay saxaafaduna hadda xilli la xakameeyo waa badantaa la isiraa waa dhaaftayo qofka saxaafi noqdayo haddii alla ku rooyaa mobilkiisa Facebook kaga oo wararka hadda waaba nala kaga hormaraaba oo war degdeg ah aniga oo laha waxa aragnaa iyadoo Facebook uu saaran yahay warka aan degdeg ka dhigayn qofka saxaafiya marka waxa naga badan saxaafadda haddii alla ku rooyaa Cabdinaasir Soole iyo ragga takhasuska kule social media taasa ka badatay oo qarisay hadda saxaafadii caadiga ahayd oo la arki jiray sida idaacadaha ama TV-yada ama wargeysyada ama website-yada inta markaan ka soo gudbo saxaafadda Soomaaliya waxaan isleeyahay muddo badan ay soo kufkufaysay markii ugu roonad inay hadda joogto dhibaato badan ayay soo martay Allahu naxariisay Mahad Axmed Cilmi markii laga bilaabo kadib waxa dhimatay in ka badan 50 wari waxa loo dilayana waxay ahayd akhbaarta ay bulshada gaarsiinayaan dambi kale ay galeen oo hadda haddii alla ku roon yahay lagu cadeynay ma jirin su'aashan ah dawladdu ma leedahay haddii alla ku roon sharci ay ku ilaaliso saxaafadda ma laha sida aan aaminsanahay sababtoo ah xeerkii saxaafadda oo kala hagi lahay saxaafadda iyo dawladda waa ogtihiin oo weli ma dhaqan gelin hase yeeshee hay'ad kasta oo dawladeed waxay ilaalisaa ayada wixii laga sheegay maanta haddii madaxweynaha wax laga sheego madaxtooyada laga soo wacaya ra'iisul wasaaraha wax laga sheego xafiiskiisa ku soo wacaya haddii alla ku wasaaradda wax ka sheegto ayada kula soo xiriiraysa ilaa kii goob midaysan iyo nidaam midaysan oo haddii alla ku roon yahay shuruuc ay ku ilaaliyaan saxaafadda u diyaariyay ma jira marka waa uun haddii alla ku roon yahay inta badan wixii dawladdu saxaafiga ay aad uga tabanayso dhibaatada ugu badan oo u geysa waa inay xiraan hase yeeshee maalmo kadib ay soo daayaan laakiin dhibka ugu weyn oo saxaafaddu ay qabtaa waxa waaye dhinaca kale ee dawladda ka soo horjeeda ama ummadda Soomaaliyeed ka soo horjeeda oo tilaabo kasta oo ay qaadaan ay ka bilaabato dil kuna dhamaato dil waxaan dhahnaa inkastoo dadkeenu dulmiga uu ka simeeyo dooxatadu xasuuqaan haddana waxa uu sii daran duulka aan habaaranay saxaafadda ma daayaan saxaafadduna ma daaya dabley aan la garan baa saaka wariye dilay oo duugtiisa joognaa dadaalkii iyo hawshana kama daali doonay dadweyne ogsoonow shacabkuna ma daayaan waa yaaba yaa dilay maxaa wariye loo dilay ma la dilay kuwii helay dawladduna ma daayaan wariyaha kuwii dilay waa ku daba jirnaayo degdeg aan u soo qaban ehelkii iyo dadkiisana taxsiyaanu diraynaa hay'adaha duniduna u dul qaadan mayno iyo cambaarayn ma daayaan wa salaamantii wa salaamu calaykum.